تعالى مهدينا نحمده ونستعينه ونشكره. وثانيا مركز عبد الله بن حذافة لتحفيظ القرآن الكريم، مركز مامول كيسا يا معلمين تيسا أرضي ديسا والدين تا يدمان مرتشرف علومه وجوه الرئيسة آديات بنو السلامية. maanta halkan waxaa jooga sheekhaygii iyo sheekheennii sheekh Ibraahim Daldale oo runtii sheekheennina waalidkeenniina dayf yani waxa weeyaan jaliil oo culus ba maanta inala jooga, anaguna ardaydiisii baan nahay. waanu noo idmay insha Allah taala inaan hortiisa maarksa oo aan ardaydiisii nahay iyo culumada kale sheekh Durda iyo sheekh Maxamed Shiina iyo dhammaan macallimiinta iyo maamulka macadka iyo culimada kaleba aad baan idin salaamaya. walaalayaal de xafladaynu joogno waxa la yiraahdaa likulli maqaamin maqaal, meel kasta waxay leedahay kelmad ku haboon. maanta waxaynu joognaa markaskaasi ardaydu ka qalin jabinayaan ayaynu joognaa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo macallimiinta horta soo saartay waanu ducaynaynaa. waxaa ku filan sidaa la sheegay khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allama, ardayda iyo macallimiintaba taasaa ku filan. rasuulkii baa salawaatullaahi wasalaamu calayhi taskiyeeyey oo yidhi khayriyada ummadda siiyey, ummadda waxay ugu khayr badan buu yidhi oo idinku khayr badan kaa qur'aanka baraya iyo ka baranaya ayaa ugu khayr badan. marka jazaahum allahu khayran macallimiintii markaska ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka abaalmariyo juhuudda ay bixinayeen iminkana ay bixinayaan ay daayarta rag iyo dumarba wiilal iyo gabdhaba quraanka ku barayaan. dhalinyarta quraanka dhammaysana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo, waanu ducaynaynaa. sida quraanka ilaahay ugu fudaydiyey ay u dhammaystireen culumta kale iyo culumul quraankiina ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo noloshaba inay ku najaxaan ay ku guulaystaan ayaan ugu ducaynaynaa. kuwa soo socda baranayana insha Allah ta'ala ilaahay inuu fudaydiyo oo dadaalkaasi ay wadada markasa halka ka hayaan weeye. quraanku waa kalaamullaahi ta'ala, wax alla wixii calaaqa la yeeshaa uu barakoobaya, alla wixii calaaqa la yeeshaa waa kitaab barakaysan. وهذا كتاب أنزلناه مبارك إلهي الله سبحانه وتعالى، كتاب barakaysan weeye. qofka bartaana uu ku barakoobaya, meesha lagu dhigaa way ku barakoobaysaa. fadligiisana dee kama sheekayn karo oo waad ogtihiin yani waxa weeyaan kalaamullaahi ta'aala wax walba inuu ka sareeyo oo ilaahay khaaliq aha kalaamkiisii uu yahay. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wakiilaha quraanka meelaha badan ee kitaabka laga hadlay lagu amaanay alif laam miim dhalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay dhalika alkitaab baa ilaahay leeyahay كاسا كتابا كاسي وكتاب كي با إلهي ليه ذلك كاسي الكتاب كتاب كي قرآن كي وي لا ريب فيه حال أنا وحشكيه أنا كجرين إنه إلهي سبحانه وتعالى حقي سكيمد إنه كتابي هي إنه حقي هي والنبي الله محمد صلوات الله وسلام عليه لقصه تجيه إن رسالة نوية هي ضدك أرد الله قطلق عليه أما إنسي يجين loogu talagalay uu yahay wax shaki oo ku jira ma jiro. hudan lil muttaqiin ba ilaahi subhanahu wa ta'ala yiri la rayba fihi hudan lil muttaqiin, hala kawnihi hudan lil muttaqiin, dadka muttaqiinta ilaahi ka cabsanaya subhanahu wa ta'ala hanuun buu yahay isagoo loo soo dejiyay dadka oo dhan ayaa haddana kuwa ku intifaacaya ee ku hanuunaya yihiin dadka muttaqiinta. lama koobi karo